بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله قيبتي لباد ورئيسي aan la lahayn mudane Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf agaasimihii hore ee xarunta irshaad dawladda Soomaaliya haatan falanqeeyo dhinaca amniga iyo siyaasadda Cabdiraxmaan oo markale ku faraxsanay inaan qaybtan soo nimaadno qaybtii hore dabcan hore bay noo guda galay laakiin tan waa iga duwan tahay wax badan ma kaga hadli doonaa inta aanan mowduuca guda galin waxaan jeclahay su'aal aan hore ku weydiinay hadda ku weydiiyay dad Soomaaliyeed badan waa ku daawanaya dad badan waa ku yaqaanaan kuwa aan ku aqoonina muuqaalka waa gaadhaya waxaad ii sheegtaa waayahaagii nolosha Cabdiraxmaan qofka uu yahay bal meesha aad halganka nolosha ka soo bilowday iyo ilaa iyo intaad iga xusi karto soo koob waa maasantahay runtii aniga waxaan dhihi karaa waa qofka nolosha ka soo maray xaalada adag dadka kusoo qoran ka mid ahay oo ilaahay ka sokow naftiisa xoogga saaray oo isku tashaday way jiraan dad oo runtii saameyn ugu leh oo ilaa garab istaagay laakiin noloshayda ugu muhiimsan waxay ka bilaabanaysaa 95 mar aan aaday Suudaan markaa Suudaan waxaan kusoo qaatay 8 sano oo aan macadna ku dhigtay jaamacadna ku dhigtay masterna ku diyaariyay oo media martay 2003 ama 2002 dhamaadkii November ayaan ka soo tagay waxaan Muqdisho waxay raan joogay waxaan bishii August 2003 waxaan ka shaqal galay jaamacadda Bariga Afrika oo ku taala Boosaaso oo runtii aan ka mid ahay dadka aasay يا جامعة كمدة هاي كارهان ميدان كده أساسية وحكوا قريبا كمدة هاي وشعب دواء الحاشي الله يحفظيه يدكتور عبد الغفار وهذا أصلا صاحبي وهذا حمل جوجا يعني قاعد قرن ميدان أساسي جامعة بري أفريقيا وإلى هذا الله وشقيه وشقيه معلم باكلو جامعة وهذا قاعد وكل هي لما كل يشنتي استبيش أوغست يعني سووري كسمايو وحنا كسمايو سووري جاي أنا قريب كان وضع أقولين هناك Soomaaliyeed habaynu wax ka yagleelo jaamacadda Kismaayo sababta Kismaayo wariga jaamacadda gaba yeelay lixdankii ilaa waqtiga jaamacadda Kismaayo aan dhisay ay yagleeyeen ma jirin wax jaamacad marka in aan ma garanaysaa wax ka qabano runtii marka dadka reer Kismaayona meel kale jaamacad waadayeen ha ani jaamacad ahliya waxa laga sameeyay jaamacad ahliya waxa laga sameeyay Boosaaso iyo Muqdisho iyo meel badan laakiin Kismaayo laga sameeyay marka jaamacadda ugu horeysay oo laga yagleeyay noqotay marka Dr. Maxamed Wali Maxamed Abdi Aadan Maxamed Wali oo saaxiibkay ahaa runtii noloshaydana saameyn ku lahaa intaan Suudaan joogay oo ka qayb qaatay master ka midaan gaarnay iga qayb qaatay ayaa mashruuca isoo bandhigay oo asaga barnaamijka watay waan ka aqbalay Kismaayo saas ku yimid waxaan noqday marka dad fara ku tiraysaa oo Cabdiqaadir shaqo xikam ka mid yahay وكمد هاي حمزة عبد آر برا وهذا حلبانها وكمد هاي حسين عبد آدم وحاوي أنا سجنا بدي دور شده غير مكانسة حلميري قيد كاها حبي كاها يو دكتور بشير عبد الصمد كان هو شيء جيو كان ورئيس هو شيء يا ركض فرا بدن مكانسة جميع توفيق مكاس قيد كاها يعني كو أساس جامعة كسمايو على بكرة شنتي يعني أولي saan hore kugu sheegay in badan ma ku qaatay markaas Kismaayo 2005 ilaa 2014 Kismaayo joogay jaamacadda Kismaayo waxaan ka dhigayaa waxa markii ugu soo biiray inaan fiildigii aan bartay oo media inaan ku shaqeeyo marka waxaan bilaabay marka inaan waqtiga maxaakamta oo aad ay xaalad u kacsaneyd inaan qalinkayga وسائد عربها سعودية لقينا مصر لقينا ملكة سوماليا إلى هاي أنا وربحنا ديارس ورا كقرا فالوي كي وقتي عن قراي وحنو بدري كتاب ويبقى كتبت إذا عن قراي عليها شن كتابها كتاب يقول في عنه وعن كهالله دعوين كي مركز دعاهي لقصوا بالله وقتي محاكمته إلى لقصوا قالوا لبكم طبعا لقصوا قالوا عن كفر قيني dhacdooyinkii kala duwan ee Soomaaliya taab taxriir oo aragtida
runtii 2014 magacaadu bixisa kitaabkaas هذا وحي القلم وحي القلم فصول من الأزمة الصومالية وعرب بخورية مركا كنت بلا بكون يأفر تبنكي وقتها إن كسماعي يسبت بعد كده عاي لما كنا بيت تبنكي شو أكتوبر وكي جبلان عندنا هنا وريجين قرب كينيا مركان مركز سبحان الله كسماعي وين جو على بكون على بيت تبنكي استحي تبنكي أفر تبنكي قيد وين جو كده بكده بوحان بأسرعي أنا كنت ملصق ميل فحق جاري وجزيرة مدن وشقينيا موقع نت وشقينيا وحويان وحكو قرى كينيا صوماليا إثيوبيا يوغندا اللي كانوا عام كهاي يعني قف أكاديمية وحويان كشقي جامعة اسمها محاضر وحكي ما ممكن كجرا يعني دتك والنهضة مركز دتك فترة وثيقة وحويان bulshada inuu tawjiihiyo bulshada inuu magaranaysaa jidka saxda ah uu ifiyo waxa weeyaan dadka in looga digo waxyaabaha khataraha ku keenaya haday tahay jahliga haday tahay qabyaalada haday tahay waxyaabaha kale ee wiiqaya dadka anoo qayb ka ah waxaan go'aansaday inaan u soo wareego Muqdisho marka 2014 bishii June ee u soo wareegay Muqdisho markaan mid ma ahayn qof oo shaqo la'aan ah aniga oo jaamacadan u shaqeeya aniga oo waxa weeyaan جزيرة نوشة كيا يعني إسكافي عن نور في عن كوجرة دجال بير في عنا قاطع وفرة حتى ذلك أنا حكسيني يعني حمر أسوري وحنا يقول لي إن عن أسوري حمر إن كباستيا يو خبرة عن لها يا كتير عن لها كيسلو ذا يوجدته وأمر عن قادم كم شقة عن قبل كرة وربنا سد عالها وقبنا يوم inaan gaarsiiyo level federal level dawladda Soomaaliya inaan ka bilaabo hadii aan ku biirayo xukuumadna ama dawladda ku biirayana inaan ka bilaabo level federal oo ka bilaabo maamul goboleed طبعا Jubbaland waxaan ahaa meeshii baaqiyay oo magaranaysaa markii aan joogay marka waxaan tagay laakiin waxaad dooratay inaad federaal ka bilowdo xabal waan tagay dadin la yaqaan waan ahaa kadibna kulamaan la qaatay ninka kulanka la qaatay wuxuu ahaa Farshax Abdulqaadir oo markaa wasiirka dastuurka iyo cadaaladda oo wasiirada markaa ugu xoog badnaa ahaa waa bilkiliye xilligaas sidna la ahaa kulli dad milkiir ah laakiin ninkaas qaab milkiir u fikri jirin hay qaabka hadda faadu fikireen ma baawar sheen ku wajiray xukuumadda mucaarad maxaafada lagu jiray nin adeegsada awood ma ahayn laakiin adiga laftaada waxaad ku doorbideen isaga la kulanto waxay ahayd awood dawlaha waa saqaanay okay aqoon hore soo lahayd waxaa yeelay in badan jasiiro u shaqeynay faalooyinka aan qorayo waa la akhrin jiray 2012 abaarihi ka Soomaaliya waxaana ahaa wariyaashii ugu muhiimsan maray in badan maray حتى وحاويان أو صابر اللي جاي ريبوديو يعني كبدا ما كان اللي يقعنا هاي أو مجمع سامي يقعني رنتي وحكروا جري لينكرو سامين مرشد كله أو مركز رنتي يجي وحاجري دكتور محمد حاجي وأصلا صاحب كوين إلى السودان صاحب كوين ورنتي قارئة وأنا قاعد كذا قارئة وحمر الجوجة جامعات كحمرنا بروفيسور وحكى يا جري أو مقرنسا فارش بقتل المركز أي صاحبها هي قرابنا هو حسب سوي جديد مثلا مركا فأنا هو يغني مركا واي قابلي وان شيء كيسني طبعا استمركنا وكنا عينا لا شقيو أي ملعبي لا تليسة أريما ميديا كوميونيكيشن أيو أي ملعبي لما كنا في تمكي كدب وكي اسبدلكي ودعي يو اللي بدلي عبولي وكيل بدلي وعمر عبد الرشيد ويمد مركا فتير او صبح بلود meelaha saar ayaan joogay maxamar oo garanaysan heedana iska daba adeegay kadib ayaa bishii Abriil 2015 la magacaabay agaasima xarunta irshaad afsiga oo ay dawladdu leedahay oo ah xaruntii ugu horeysay oo runtii ahaa dadaal hor leh oo ay dawladdu ay ku talaabsatay in ay macaahidda iyo maraakista in la sameeyo way jasiiro goorma ka ruqsaysatay
jaziira markii la ii magacaabay bisha abriil oo aan shaqadii aan toos waxaan ula wareegay markii irshaad lagu magacaabay may baan la wareegay markaan shaqada la wareegay ayaan istaaqay okay bas maxay ahayd shaqadu iyo la isku keeni karin adoo shaqada dawladda haya kuma shaqayn kartid media oo jaziira intii aan wada shaqaynayna waxay ahayd fatrad aad u wanaagsan oo aniga noloshaydana cid kale saameysayna ay ahayd number 1 hadii kara jaziira net oo runtii anigana aan ku soo bandhigay aqoontayda iyo wax fara badan oo marka aan dareemay aan ku soo bandhigay oo dad fara badan waaqaaci fara badan ku soo bandhigay dad badan oo ugu hiiliyay shacabka Soomaaliyeed oo ma garanaysaa xataa aan ku soo bandhigay kacdoonkii Oromada iyo Itoobiya ku soo bandhigay ma garanaysaa aan ku soo bandhigay xataa شبودان كسر بندقية حتى كينيا سراعا حتى جودها لفتي سجل وقاعدين تذكر الوحري قبل بدنا الوعي على بلفته هذا أول شيء كعادي نيروبي وهاي مركز بلوجي وجوري مركز صدعي أنا قبل مركز اللي مش بديه أرجع سمع ذبا وليه هذين هيو ومركز تم قرن السالة منك هذه لا وين لقبت ماك سوق جوا وحبس واي تفر بدون مركز وين تدربات هذين كجري وين تدوريه هذا المركز حل وديتي عبد العزيز ما يستقانا محوية هي وأنا مركز حاول أن تفر بدون ربطي ولا شيء ذا وحا مركز الجعله وحيابه تحدي جالنج إن أنا مرة كقبلني بنجا بكوس حاول أن ضربت أنا هذا هربرته ضربت أنا ضد حقبته وأنا مخاطرت هي خطرة أو بريرته أي نقول إسلام كده بدي أشد السنة قدام السنة وحالها بعمودها ورياش الصومالي ذا الجزيرة سو شقي وحال لا أنت بدن لنا السياسة ذا قد بيوحق بدنيين وأنا رك دولة قدر أي توبر وينسيس سدا موجر تارداس ما يعني أهم بقف كورية مكوية هي أو شقي لايفل أو انترناشنال ما كوش ما خلنا كورية عالمية أما الدولية واحد جوتي حيندابكي لوكال محلي جوتي وحبان بآخر نساء وحبان بدوغانيسا مسؤولين فربضان أو صومالي أيام كنت حقين لك وحسيني أو وليس كاليسا وحاويان نارتفيدا مركا جراء أياد حقا أخذ حقا وبحيسا مركا ومدرسة يعني مدرسة وي مركا سياسة يميديا ما بكلا بحامة وعطيبه ما بكلا بحامة قف كدو ورياي وسياسي قف يعني قف كدو سياسي طبعا وريهم بصير ميدا سينيا لكن قف كدو مر وياي وريه أقونت ذي ولياي وحاويان أيضا يا سمينيسا لكن ما هاي الدولة كسمينيسا قف كم مركز أصغر حرير سميسنا والدولة لا شك سنيا وعارف كلواهي لكن جزيرة وحيد مؤسسة إعلامية عالم العربي وحكبت شيء عالم كذا قلبت وحكبت شيء صوبا لكتي رنتي برامجyo iyo afkaar soo bandhigtay qaab waliba firiya soo bandhigtay laakiin anigu waxaan uga faa'iideeyay shacabka Soomaaliyeed waxaan uga faa'iideeyay shacabka Soomaaliyeed haba joogo meel kasta jooga ha ahaadee yaan uga faa'iideeyay oo ku taageeray oo ku soo bandhigay waxaan dhigaa waa meelaha dadka Soomaaliyeed aan dadka aqoonyahanka siyaasiyiinta ay ugu barteen baa dhiga kara waayo fiilga academy waa soo kooban yahay laakiin fiilga media marka soo bandhigayso riboodyo ma garanaysaa la yaab hooyada igu yaa badan aan qoray marka wali tahay waa inaadan noqonin waa aan noqoto qof maxayda marka waxa asabtaas waxa soo bandhigaysaa riboodyo adiga naftaada khatar u keenay inkastoo ay markasta ay tahay noloshaada awalan nabadgelyada oo markasta ayaa muhiim ah laakiin haddana waxa soo bandhigaysaa riboodyo khatar keeni karta ama maya nolosha dadka wax ka bedelaysa waxa fiican lahaa inaan markale taas ka shaqeeyo waay si kooban hadaan ka shaqeeyo waxa weeyaan noloshayda iyo runtii waxyaabay kugu dhibka badnaa marka riboodada diyaarinayso waxa kamid ah waxaabay ugu dhib badnaa waxay ahway badin mid iyo laba laakiin waxa ugu dhib badnaa saddex aye mid aniga laga kuliyo sagaalkii waxaan joogay Ismaaciil waxa haystay dhulka shaqo waxaan ribood furul ka diyaariyay oo macquul ah waxa la yiraahdo Abeeda wuxuuna ahaa ribood aad u fiican xogna way ku jirtay riboodkii waa la faafiyey markii riboodkii la faafiyey ayaa 3 saac ka soo wareegtay waxay idaacada Andalus laga sii daayay magacii Cabdi Xasan Yusuf
oo ahaa cadow shay la shaqeeya aduguna waa joogtaa ana xawla jooga ana waxa joogtaa Kismaayo joogtaa idaacaduna Kismaayo joogtaa ayaga iska leh oo liiha jabay kii u daqaabo marka waxaan aadiisay haystay sargaal oo ayaa ka tirsanaa laba ahaayeen mid baa igu sidarra kii marka waan arkay waan sheekaysanay waan iska dejiyay laakiin kiisku waa ka weeyahay marka waxaa jiray ururku saddex qayb baa qayb wuxuu ahaa Raskiboni qaybna wuxuu ahaa mucaskar caanole qaybna waa Al-Shabaab laba qaybood marka ay taageeray oo idfaaceen waxay dhanka faraha laga qaado bas laakiin waxa la sameeyay waa la iyaaray xarunta oo xisbada la yiraahdo marka fiirno booliska ka dhig oo markaas laba nin baa iska hooseysay labadaba daarada marka way iyaaran wixii bay ay sharxeen Xaji Cabdiraxmaan oo kiis khaldan baa gashay kiis khataraha gashay anaga amnigaaga ma ballan qaadi karo waxa ka dambeeya martaba waxa soo ha ku hadlay marka waxay ku haystaan muxuu yahay ma waxa lagu haystaa maxaad bacbeed waash bacbeed ma aha mujaahidiin waa okay waxa marka iga darnay waxaan hayay xog kale oo ay ashaab involved ku ahayeen burcabadeeda involved ku ahayeen haddii taa ku dar lahaa I think intaas inay hawsh ka daraanay okay wallahi ma garanaysaa خطر كوين أتقله أنقله هيو لكتها ما قرن أنا بحاول أنا خطر يمكنسا وهذا وجدنا خطر كوينس لكن لما بعبده يبد أو مقالة يبد أو حمر كيبد أو هو كان صدي هو كيلوسي داي ما لها أي حياتك جوجان يعني تجي ولا يصير السوق هذا صوران سوق هذا دومه بعبدنا سوق هذا البوش ده مثلا بوها كانت قلب بوها قلب ضحوها وحاس تقالمي حزب الإسلام يأصلا أصلك اسمها جوكتا صح اسمها كنت غالبا waxaan ka qoray report call waxaan daraasay dagaalka markaa wuxuu u dhaxeeyay Raskiboni iyo Al-Shabaab report baan ka diyaariyay waan soo bardhigay waxaan arkay labadii kooxood wax farqa ma dhaxeeyo xukuma soo qabsaday لكن مبادئ أهان هي كل وعادي حسترك وجوه لكن مدحوين محمد السلامات مثلا جبلان أي وحوي شهان هم بويا شيء سبع كسمة يروح حكومة كرا كسمة وأنا أروح حكومة أنا مجورتك أنا حكومة هي حقنا ولا وصع لكن رد بويمي حقا سيجوا ماشي دقاك واضح مك أنا جمك ريبورت من كدياري أنا الصبح دقايا أنا ليه الدجال كانوا الدجال القاتل المقتول في النار بنا عصب يري السجوا حويان متكاس ومتكاس حاجة كيستوي اسمعك قصدك اسمع سوري اسمع كيستوي طب مركب قدام بيساعد ولا ده بقى حسب ده حدهم حزب الإسلام كأخويا ما يا شاب هذا أنا مسؤول كبير أنا بجوه أنا وحير إنك ميديا هيستي والله حسن عبو وما كان ميديا هيستي يا يير وحولي حوالي سوق سنة حوالي ساعة منو ساعة دون داي وأنا قاعد صدقني لسه مجيت هذا يعني مركز دارنا يا وليس يعني واحد خالنا يا مركز أنا بحال غالط وحصدي واحد وحصدنا وعافك ورقدكم السنة مركز سال يلي صدق بركدي يعني قاعد يقرأ كل عاي دوبلي markaan marayo ayaa laga wareynaa inaan doobli marayo doobli iyaga jooga markaas doobli iyaga jooga marka ayaa qabsaday marka Kenya soo socotay markaas marka waxa la hadal jirto laakiin doobli dadka jooga oo marka ay u khudbeenayaan wareysi waa ka diyaariyay wax waa ka diyaarsan ayaa Abu Saad kuwaan garanay jooga Abu Saad baa jooga garanay لكن وحنا قاعد سمعنا بحي نيروبي أنتي ستيت بلو مكان نيروبي أنجوري لما كل السجال كيف يشيل ديسمبر يا كبح نيروبي أنتي ستيت بلو مكان حمر باتك ده حمر أنتي حمر ما اسمه كل واحد نيروبي معناها ستيت بلو نيروبي مركز شوكتي كده حاجة ده ستيت بلو أنجوري كنت بدي وحاويان أنا ما كشغلي وسيوتي نيروبي كشغلي سوماليا وحنا كقبل كرو معقولة ما كقبل
laakiin markii dambe waa lala hadlay qoladan shabaab xafiiska jaziira ee magaranaysa xamar ayaa la hadlay yiri maxaa ku haysta waa wariye muxtarafa marka waxa la bas خلاص waxa ku meesha soo wata sidii baan laba kuliyo aan ku soo noqday tobankii dhammaadkiisii bishii Oktoobar ayaa ku soo noqday Kismaayo runtii waqti fiican way ahayd oo abaarihiin xataa la sii galay way abaaraha wax ka hadli karin ma jirin aniga abaaraha waxaan ka qoray magaranaysa waqti uu dareey bahayd abaaraha jilib baan mid dadku waxa weeyaan waa dad wax ma haystaan marka sawir ka qaadayso adal buu soo ordi marka taas waxyaabay kugu dhibna waa ka gudbin aad baa maasan dad baahan baan haysan laakiin reportkii aan ka diyaariyay jilib mukhayb looki mukhayb khayba reportkan ka diyaariyay wuxuu kiciyay qof kasto carab aad baa maasan Cabdiraxmaan waa ka gudbaynaa waxaan jeclahay bal inaynu arrimaha Soomaaliya hadda taagan inaynu wax badan ka sheegno falanqeeya tahay siyaasadda iyo amniga waad ka hadashaa baraha bulshada waliba aad wax ugu qortaa xogta aad adigu soo bandhigto ama faallooyinka soo bandhigtana dad badan bay gaaraan Cabdiraxmaan markaan fiirino amni marka Soomaaliya laga hadlayo muxuu yahay amniga Soomaaliya marka laga hadlayo waa in qofka muwaadinka Soomaaliyeed si nabadgelyo ah ugu noolaado gurigiisa dadka shaqo loo abuuro dadkan laynahaya ururadan hubeysan meela saar amniga xasilooni taasna waxay keenaysaa in naga qaybood amni marka amni si guud marka la yiraahdo inay soo noqoto xasiloonidii dhinaca siyaasadda iyo dawladda xasiloonidii Soomaaliya soo noqoto sumcadeedina soo noqoto hebadeedina soo noqoto in cinwaanka ugu shaabadeeyay Soomaaliya ee ahaa waa dal amni aan ka jirin meesha ay ka baxdo way noqoto marka dawladda isku filan deganaansho leh oo wax firiida ama taadiida gudaheeda uusan ka jirin ayaduna aynan khatar ku haynin duulka dariska oo aan ka wada ururada argixisa amniga taadiini soo waxaan u maleynayaa waa qaab akademiga waxa weeyaan sax markii laga hadlayo dawladda waxa looga baahan yahay tirasho looga baahan yahay dawladda waxa looga baahan yahay lixa qodobka ugu horeeya looga baahan yahay waxa weeyaan waa tiirka siyaasadda oo amniga siyaasadda oo la rabo in ay siyaasad arrimaha gudaha siyaasad degan inay ku xukunto madaxda inay xor yihiin go'aamada ay qaadanayaan waa tiir koobaad tiirka labaad waxa weeyaan waa arrimaha militariga waa inay dawladdu dhisto ciidan tayo leh qalabaysan dalka difaaci kara gudiga dibadda midka saddexaad waa dhaqaalaha oo aha in ay dawladdu ay samayso qorshe lagu kobciyo dhaqaalaha dadka loogu abuuro shaqo khayraadka dalka ka buuxa la soo saaro ganacsiga iyo dhaqaalahan ordahaya la xakameeyo hadduu noqdo mid oo doolaraha hadduu noqdo mid kale ka dhaqaalaha waxaa jira ka bulshada oo ah inay dawladdu ay saameyn ku yeelato muwaadinka Soomaaliyeed dantiisa inay ilaaliso noloshiisa inay kor u qaado beelaha isku dhacaya inay kala ilaaliso arrimaha diinta la xiriirda inay isha ku hayso oo ay dawladdu noqoto mid mas'uulka ah diinta arrimaha bulshada iyo waan israacaniya diinta marka taana waa arrimaha magaranaysa bulshada arrinta kale muhiimka ah u baahan inaan farta ku fiirno wuxuu yahay waa geopolitics oo la xiriira dawladda xiriirka ay la leedahay caalamka hadday noqoto geeska Afrika hadday noqoto Afrika hadday noqoto Carabaha hadday noqoto Sharqul Awsat hadday noqoto adduunka si guud Yurub Mareykanka inay magaranaysaa ay leedahay siyaasad iyo policy ilaaliya danta qaranka ilaaliya danta muwaadinka Soomaaliyeed ilaaliya madax banaanida dalka
taana waxa weeyaan waa qodobka marka waxyaabahaas oo dhan marka la fiiriyo mid baa u dul istaagi karnaa oo inagoo ku qiimeynayna waa dul istaagaynaa ma garanaysaa xaaladda hadda jirta iyo madaxweynaha hadda waqtigiisu ka dhamaaday muxuu ka qabtay okay 5 sano ayaa hadda la soo inkastoo mandate-ku madaxweynuhu 4 sano ahayd laakiin 5 sano hadda xilka iyo kursiga jooga 5taas sano inkastoo aad xukunka banaanka ka joogto inkastoo aan ogahay inaadan la dhacsanayn afkaaraha dawladda hadda jirta haddana marka aad bal si cilmiyeysan u eegto 5taas sannadood ee hadda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo 6 tiir ee aad sheegtay ee dhinaca amniga ah maxaa laga qabtay maxaase laga qaban runtii intaan su'aasha jawaabteeda u gelin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo horta wuu nasiib badan yahay wuu nasiib badnaa maxaad ula jeedaa wuu nasiib waqtigii la doortay sheegaya haye wuu nasiib badnaayo waxaa weeyaan sidii loo soo dhaweeyey loogu dabaaldegay siday u garab istaageen madaxdii markaas ka guulaystay oo u garab istaageen sida ay miidiyaha caalamka u falanqeeyey loo soo bandhigay oo weliba la yidhi Soomaaliya waxaa ka soo iftaxaysa dimuqraadiyad taladii oo la wadaagay waxaa ka dhacay Soomaaliya waxaan Afrika ka dhicin hatta Carabaha ka dhicin saddex madaxweyne oo waxa weeyaan saddex madaxweyne isku xigay oo gacmaha haysta la arkay dhamaantood dalka ku nool yihiin kuna qanacsan noloshooda ku qanacsan ayadoo taas la joogo loo soo dabaaldegay waxaan dhihi karaa fursad bay wahay xulun bayna wahay wuxuu ku yoonahay nasiibkana siiyay madaxweynaha waxaa kaloo jirtay inuu soo bandhigay qorshe markii doorashada uu galahayay barnaamijkii soo bandhigay qorshe soo bandhigay weliba qaab oo uu soo bandhigay xiisale ayuu soo bandhigay oo ay ka mid ahayd in uu dalka 2 sano gudahood kaga takhalusayo qorshe iyo waxyaabo kale oo fara badan laakiin intii caqabad badan baa meesha soo baxay intaan caqabadkaas iyo fashilka ayna u gelin sida banaanba dawladdan waa sida guri oo kale dhisay guri dabaq oo kale oo ninba wax uu saaray dan dabaqan waa dhiso ka labaadna soo lama dhisayo marka ninka sax ku daray Cabdiqaasim yani dalka Soomaaliya loo ogeyn baa uu caad ugu soo celiyay Abdullahi Yusuf dawladdii wuxuu keenay madaxtooyada 2007 Shariif Sheekh Ahmed حمد بو حريي قبل كلو حريي دستور كي قبيضها ابو معناها انسحيي دورشدي بنانك لو قبنيي بو غداه قبطي ما قرتي سنه wax قبطي حشر محمد sidoo kale magaalooyin fara badan buu xuriyay barnaamijka oo badda oo aan isku haysan muranka ayuu waxa weeyaan u gudbiyay maxkamadda adduunka u gudbiyay shaqaalaha markii ugu horeysay oo la qaato 5,000 shaqaale oo ma garanaysaa dadkuna ay jeclaan dowladda inay ka shaqeeyaan ay ahayd oo la shaqaaleysiiyay doorashadii haddii ma garanaysaa lagu qabtay muqdisho waxaa lagu qabtay waqti xasan maxamuud magaalooyin kale muqdisho lagu qabtay kismaayo lagu qabtay beedhawa lagu qabtay iyo jawhar iyo cadaado iyo garowe dadkii dooranayana ma noqonin kaaba qabiiladii konton iyo kow qof ayaa ma garanaysaa ayaa dooranaya xildhibaanka waxaa dhihi karaa marka albaab cusub waxbuu ku daray ayaa dhihi karaa madaxweyne farmaajo doorashada markii laga hadlayo inkastoo caqabada badan ay jiraan inkastoo ay jiraan yani asaga markii laga hadlayo uusan doorashada hadda qabanayno oo wasaaruhu qabanay laakiin doorashada laba deegaan doorasho in laga dhigo in konton iyo kowdii 101 laga dhigo barnaamijkii uu madaxweyne xasan oo bilaabay maxkamadda loo gudbiyay inuu sii wado oo meesheeda ka sii wado ilaa ma garanaysaa go'aanka maxkamadda uu soo baxo isku day oo ah in ciidamada wax laga sameeyo gaar ahaan ciidamada Turkiga ay taabaan gogo inkastoo markada iska u faaqiyo in wax laga bilaabay lafteeda wax laga bilaabay dowladnimadii inay socoto lafteeda magaca Soomaaliya dowladnimadii
waxa weeyaan systemka inuu jiro barnaamijkaas qaabkaas inuu socdo lafteeda waxa dhici kara waa dawladda way jirtaa systemka waa jira oo systemka la ilaaliyo waa jira laakiin markaan ka hadlayno waxyaabihii istaraatiijiga kale markaan ka hadlayno furayaasha uu ahaa in uu ku guuleysto qorshihiisii doorashada madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo muuse qaban waa koowe arrimaha siyaasadda tiimka asaga iyo tiimkiisu waxay isku qanciyeen oo ay qaateen narrative ah waa inaan qaadanno in dawladda laga cabsado kowde waa in aan jiirno ama aan cagta marino mucaaradka qodob wuxuu ahaa go-aan wuxuu ahaa halis ah oo qaranka halis ku ah maanta waxaan joogna waa qayb ka mid ah maxaa yeelay xasilooni hadda hadalkiisii uu ka jeedinayay madaxweynuhu shalayta uu ka jeedinayay sanad guuradii 62 wuxuu ka hadlay xasilooni darri inagis waa u iman doona oo maamul goboleedyada qaarkood uu bedelay sida Southwest sida Hirshabelle sida Galmudug Jubbaland waxa weeyaan weerar ku qaaday magaranaysaa runtii aan guuleysan ku qaaday dagaalada noocaas ma kala fiiriyo mucaaradka qaarkood uu weeraray Cabdiraxmaan Shukuur uu weeraray waxa weeyaan ilaa magaranaysaa markiisu ka dhamaaday wixii ka dhacay 19 Abriil ka dhacay dalka weeraradii dhacay dagaaladii dhacay markaas ma kala fiiriyo waxaan galnay marxalad way Cabdiraxmaan halkaan ka dhaxgalado raaliya idinka xilligii dawladdiina ama dawladda Xasan Sheekh Maxamuud hadda Cabdiraxmaan oo kala soo qaadatay weerarkiisii maamul goboleedyada kalena waa ka dhawaajisay marka laakiin si xaqiiqi ah inuu dul istaagno dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ba siyaasiyiin waa weerartay magaalada Muqdisho saameyn ku lahaa Axmed Daaci baa kamid ahaa Cabdi Nuur Rasiyaad baa kamid ahaa Cabdiwaal maaragtay loo yaqaano ragii xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ay madaafiicda kala daashay hadana khaldanada iga sixi doon arinta maamul goboleedyadana isbarbariyaac fara badan oo aan u wanaagsanayn nidaamka dawladnimada Soomaaliya ayaa la sheegay inuu jiray xilligii maaragtay dawladdan ka horeysay oo maamul goboleedyadu siday rabaan ay isaga dhaqmayaan arrimahan iyaga khusaynin oo arrimaha dibadda maaragtay siday rabaan ay ka yeelayaan dalkay rabaan ay macaamul la sameynayaan arrin masiiri oo aan iyagaba oolin oo federaal ku taala meesha rabaan ay go'aan kaga gaari karaan madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa soo laguma amaani karo in isbarbaryaaci noocaas ah oo dhimay maamul goboleedyadii uu tusay inay yihiin dad loo kala oo arrimaha gudaha Soomaaliya kaliya ku ekaan kara ee arrimaha dibadda u gudbi kara waxyaabaha kale lagu amaani karo soo kamid ma aha hadda waxaad sheegtay Xasan oo kale iyo Shariif oo kale waxay qabteen ee wanaagsanaa Farmaajo soo lama oran karo kiiskii maxkamadda hadda aad ka dhawaajisay waa dhameystiray hawadii Soomaaliya markii ugu horeysay iyada oo dhowr iyo 30 sano Nairobi laga maamulay xamar buu keenay geesta kale soo lama oran karo ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo shalayba ku wili soo bandhigayay awoodooda uu dhismihii ugu wanaagsanaa abid kacaankii kadib ayuu sameeyay iyo waxyaabo kale oo markaasi evidence oo la soo qaadan karo soo kuma amaana madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo nin kasta wuxuu ku amaanaya way laakiin halkaaga meesha ugu dambaysa ka qabanaya haye ciidamadan la dhisay horta waxa uu dhisay heshiis oo ay dawladdu gashay waqtigii Xasan Maxamuud qoladan Turkiyana soo socotaba xiriirkooda ku jiro waqtigii Sheekh Axmed oo runtii xiriir fiican la sameeyay Turkiya kadib waxay sii bulaalay oo sii xoogaystay waqtigii Xasan Maxamuud 2016 bishii joog ayaa waxa la kala saxiixay heshiiska aan ka hadlayno inay Turkiya inoo tabartay ciidamadan inoo tabartay xagga Soomaaliya waxa uu saxiixay wasiirka arrimaha dibadda Xabsaan ayaa u saxiixay marka heshiiska markii la saxiixay wuxuu ahaa in ay Turkiya inoo tabarto ciidan la dowladda inoo tabarto iyo qaacidii ciidan military marka waa saan ku sheegay dawladdu waa ka dhaxlaya ninba baad wax ku daraya marka waqtiga markii la yimid marka oo Farmaajo waqtigiisa la yimid waxay sameeyeen talaabo way qaadeen oo ahaa in ciidanka la tababaro oo laga faa'iideysto fursadan oo la dhaqan geliyo heshiiskii labada dal ay galeen la dhaqan geliyo kadibna ciidamadan gobolka la tababaray waxa weeyaan waana arrin markasta la bogaadinayo hadii maanta waxa weeyaan kula askari la tababaro oo waxa weeyaan tababaran oo habaysan waxa weeyaan dawladuna iska leedahay waa arrin bogaadin badan taas wax ma garanaysaa diidin ma jirto laakiin waxa jira waxay tahay ciidamadaas qaabkee loo xushay
kriteeriyada loo shaqaaqay waa ciidamada ma ka kooban yihiin 18 gobol ee Soomaaliya ma ka kooban yihiin dhammaan maamul goboleedka ciidamadaas ideolojiyada la baraya maxay yihiin ciidamada lagu carbiyay inay la dagaalamaan ma yihiin oo dalka inay xoreeyaan ciidamadan waxa weeyaan saxiix way jirtay inay dagaal la galeen shabaab mashaqalaha dhexe ama shabeellaha hoose waxyaaba ka kooban waay marka waxaa la dhihi karaa ciidamadaas waa ciidamadaas kow horta waxaa loo adeegsaday madaxdii hore oo saameynta ugu weyn ku lahaa dhisida ciidamada sheekh shariif iyo xasan maxamuud weliba xasan maxamuud ahaa ninkii waqtigiisa la saxeexay in ciidan la taabaro ayaa loo adeegsaday ciidamada kor oo dogeyd midda kale intii ciidamadii hadda la soo bandhigayay intii la isku ururiyo oo qorshe loo sameeyo magaalooyin istiraatiiji lagu qabanay lagu maxay heshiiskii 2018 bishii June lagu galay lixdeed lagu galay Baydhabo ee madaxda federaalka madaxweyne Farmaajo hogaaminayo iyo madaxda dowladda goboleedka ka galeen heshiiskii lama hirgelin oo dhigahayay in Allah isku dhafo ciidanka qaranka in ciidan midaysan la sameeyo la saakay dhammaan gobolada kale si shakiga meesha uga baxo lagu diyaar garoobo in xilka la wadaagaamiso tiina ma dhicin midda kale falcelintii ugu muhiimsaneed ee la sameyn lahaana muuna sameyn madaxweynuhu oo ahayd October 14keedii 2017 wixii ka dhacay qarax ka dhacay Muqdisho ay 2,000 oo qof ka badan dhaawac iyo dhimasho ay ku noqdeen waxay ahayd madaxweynuhu inuu ka dhigiyo waxay ahayd inuu falcelin ka sameeyo waxay ahayd wadanidiisa inay noqoto mid inuu ka sheego shacabku diyaar bay u ahaayeen xataa mucaarka diyaar ahaa inuu intuu dabaabada galo oo ku dhaqaaqo in la xoreeyo dhulka ma sameyntaan ma sameeyno midda kale dilalka socda iyo qaraxyada socda wali sidii wax isbedeli ma jiro oo waxaan ku sheegi karaa yani bil kasta in la fuliyo waxaan ka yareen 70 ilaa 60 ilaa 90 u dhaxaysa weerar in laga fuliyo oo dawladda ka imaanaya oo gudaha dalkiisa macnaha ka imaanaya dhinaca soo bilaabo Puntland ilaa Jubaland laakiin ka imaanaya macnaha dhinaca kale xagga marka sadarteed hadduu soo jirin qorshe amni oo qaran oo lagu hawlgali karo haddii madaxdii maamul goboleedka iyo dowladda federaalka aan mideysnayn oo qorshe ay ku mideysayeen uu jirin haddii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maanta ay shaqeeyeen haddii sanad guuradii 62 maanta shalayto uu ra'iisul wasaaruhu tagi waayay oo wasiirka shaqada tagi waayay oo wasiirka amniga uu tagi waayay waxaad ka sheekanaysaa inuu yahay ciidan oo isweeyay aniga ciidanka waan jeclahay ciidanka waan taageerayaa sharaf leeyihiin karaam leeyihiin taageer leeyihiin laakiin waxa in boqol ma ka fiiriyo madaxweyne maxamed Abdullaahi Farmaajo waxa jira caqabad hadda ku jiray oo aha wadamo kala duwan oo ciidanka Soomaaliya tababaray hadda goor ma ka hadlo caqabadkaas ma soo afjarin Turkiya kaliya ma soo koomaanin ciidamo kale oo waxa weeyaan leeyahay 7,000 oo askari ayaa artay loo diray ciidamada artay jira miyaa la keenay maxay qama doonaan dawladda hore loo keen hadda koor waxa ciidanka Soomaaliya tababartay Kenya Uganda Ethiopia Djibouti Mareykan Ingiriis Imaaraadka ciidan intaas dal ay tababarayaan isku aqoon ma aha isku dhaqan ma aha isku cadow ma aha isku qaab xataa loo tababaray xataa isku gaardi ma aha marka arrimaha aan ka hadlayno waxaan u baahanahay markaan qirayno in ciidanka wax loo qabtay oo mushaakis la siiyo shaqaalaha mushaakis la siiyo waa shaqo uu qaban karo qof kasta oo mudiir ama manager ah ayaa qaban kara shaqadaas wasiira qaban kara laakiin qofka leadershipka maxaa qofka leadershipka waxa laga rabaa waa inuu bedelo nolosha dadka wixii hadda ku horjeed waa inuu bedelo ma inuu ku bedelo qori ma dadka inuu laayo ma macaarka inuu wadaado mid kale aan ku sheegay waxay tahay madaxweynuhu wuxuu si bareer ah ula dagaalamay federaalka nidaamka federaalka waliba waxa ku cadeynaya xoog wada nidaamka federaalka ula dagaalamay wuxuu yiri nidaamka federaalka wuxuu khatar ku yahay amniga qaranka
إيه تفاصيل لكن أنا جو حنقولنا هاي معمول فدرال كنا ولي شرو معمول قبلدي شيران لكن أودي أي هراء أولى هايين عن شرعيات كل سنين وماركت الشرعيات دي بري أنت ساماركت ضد الصوماليين بدل نسكور عزيز نعم كفدرال كهذا جرا هي نعم كفدرال كهذا جرا كي هو رجعها هي لكن وأنا فدرالها وحاوليان وحدة القبضني مدحونا وحوب بوقضي إثيوبيا هي وحين سأركان في الزراعة إثيوبيا أبي أحمد وصاحبه هي اسبدل كدع إثيوبيا رنتي وهو اسبدل دنوا شعوب إثيوبيا ضبوها هي أنا أركت من لا يصور لا أحمد السوشيال ميديا مدحونا محمد عبد الله فرماجو يا أبي أحمد أيوة إنتاجية هي في الزراعة إثيوبيا مدحونا فرماجو مدحونا مصطفى يفريان أحمد شدنا حاجة وكتاعية ومدحونا فرماجو فرته وكفي قهيو مصطفى أنا جا أخذت أنا أخذي مقرنسة محل آخره وحنا أخذي فدرالك إثيوبيا أكله أيام كواليسي إثيوبيا حق جل فدرال ما وحب بدن طفكس وعين كرا لكن إثيوبيا الصومالية شخص ماله الصومالية وعدل كسو كبطي دقال سكرية وعدل كلا يردوبي وعدل باو شركة ولي عن فهمين وعدل حق السوايستا هدي مركا dalka oo soo kabtay oo soo hagaagay oo meel fiican soo gaarsiiyay aad dib waxaan ugu celinayaa awood baa adeegsanaya waliba awood shay adeegsanaya sheefskiin waxaan ku bedelayaa awood shay waxa Itoobiyaanka ayaa arrimaha amsan ya qaybka marka arrimaha marka la fiiriyo lama dhihi karo waa arrimo garanaysa sax arrimo khalad waa arrimo khatar ku ah amniga qaranka marka laga hadlayo waa in deganaansho la helo وإن دجالها جودها أنا دعيبة وإن شيئا على الأوفر نسير برنامج خاندي مالك هاسو على الأوفر أنا أنت عارف ليسو حبذا الأوليان تي أدم كل غضب تي حسن يا حتى وقت يعب ليس لبنا عرتيفه ما عرتيف وحسن محمود الشيخ سليفي أي وتير محوها كان حسن محمود ما عرتيف هوها وده أضل شراكة حكم وذلنا معارض قريب كي لكن معارض سوكي وين هو وكل صعب معارض هزول معارضها مش معارضها حقا محاولين وكيلها وإن اللي بدلوا هبل مش معارضها ومثلي ولا معارضه وجامني حسن محمود محافظه وجامني مركب ما هين هبل هديله ويرى إن اللي ما هين هبل إن ويرى نعيب ما هين هبل إن ويرى إن لا أبغره قالاسو ما هين واحد مقرنس الدولة اختري أمني وكذا ما هين تلاكي وكدوه واي وحقاته وانكات كان وحقاته وعبس جريني وحقاته وحويان أنا مرة معارضة وحاتري معارضة وخان وطنين الشيء ككالله وحد ديكو صنع لسي ما تفكي مصطلحات كعنك ديكو صنع لسي حوج ودينين تمادستي هتكون بحاجة يقول ياش بيش يقول ياش بحاجة جلس حوج ودينين أبو ولي بقى مدحوينه مع عبد الله فرماجو أديكو ولي مدحوينه دارود وأي هوية بسلادين وأي قبيلات دك بسلادين وأي أقبلين إن مدحوينه فرماجو مدحوينه فلو نقضوا والجود بالدقي أي حكبر ولا حبت ولو حكبر ولا كوي أديك مركي أديك مكان سدول دك عنك يعني دتكي markaas la dagaalamay oo marka laga yaabo inay wax badan awood marka la waqtigaas awood yar baa la hadda laakiin awood leeyahay waxa dhaafay hal qayb baa laga yaabaa in xukunka iyo okay aan ka dhaxgal waqti badan ma ku sii ma waqti badan ma ku sii waqti waa siinaysaa laakiin waan kala qaadana معرفتك أبداً حسن محمود وفرماجو شخص واحد وي عبد الرحمن هذا وما صدق ولا وقت بدنا كسي مركا أنفير إنه مدحوينه فرماجو iyo madaxweyne xasan ama madaxweyne shariif madaxweynayaasha ka horeeyay lama dagaalamin oo mucaarad kuma noqonin xasan sheekh maxamuud madaxweynayaasha ka horeeyay Cabdullaahi waa badintay Allahu naxariistay laakiin shariif oo ka horeeyay iyo Cabdiqaasin oo ka horeeyay midna inay garab istaagaan mooyeen lama dagaalamin laakiin madaxweyne farmaajo wuxuu noqday madaxweynihii ugu mucaaradada badnaa wuxuuna nasiib u yeeshay in madaxweynayaashiisa ka horeeyay oo laba isu soo garab fadhiistaan shir jiraayadu wada qabtaan thumma wallahi waan ku saareynaa ay maaragtay public ay kaga khudbadeeyaan
marka aan laba gaarin mucaaradka kale nin madaxweynayaasha ka horeeyay ay magaalada Muqdisho ka xigsanayaan oo ay mucaaradayaan oo ay maalin walba shir jira ay ku garab hayaan oo maalin walba ay dacaayadiisa suuqa la taagan yihiin ma sax baad u aragtaa mid ayada in sidaa u dhacdo farmaajo waa mucaarada loo yeeshadu sababta loogu noo afartii sano intuu joogay qof wallahi ma jiro dad badan waxay aaminsan yihiin inaan jaanis la siin afar sano waxaa si jaanis midowga murashaxiinta markii lagu dhawaaqayay waxay ahayd dhamaadkii December 2020 waxaana u dhinaa 2 bilood sababta mucaaradka loo naan ku sheegay wuxuu qaatay falsafada ku dhisan kirgitalisnimo ku dhisan in awood loo adeegsado mucaaradka ku dhisan in dawladda lagu dhaliyo awood military ku dhisan Soomaalida indhaha loo guduudiyaan Soomaalida waa la dilaa Soomaalida ninkii dilay ka baqan waa falsafada ashaab ama kaga sheekeynaysa narrative-ka oo ururka shabaab ay isticmaalayaan iyo ururka ay xukuumadda isticmaal malihi madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa waa shaamil aniga laakiin dhaqanka iyo narrative-ka ay yimaadeen ayaa cabsi gelin taartu waa mid waa qodob Abdulrahman Shako inuu ku bilaabay 2017 wadaniyadii lagu yaqaanay farmaajo ee ku dhawaaqayna waxay noqotay habaan manfuur ama biyaha magaranaysa sarab daan magaalo ma laha ee noqotay qabdhaha muu dhiibay dadkii Soomaalida way kaceen waxay arkeen inuusan ninkan u soconin sida banaaba mid ka sax wuxuu macallin ka dhigtay oo jidkooda uu qaaday wadamo lagu yaqaano in ay yihiin ama isticmaalaan nidaamka xisbi waahid oo aan mucaarad laga ogolayn hal xisbi inuu ka jiro caalamku way ku badan yihiin yaa kamid waxa kamid ah Eritrea qatay waliba saaxiib qatay waxa kamid ah Ethiopia inta soo axzaab ay ka jiraan oo ay ka duwan tahay Eritrea laakiin haddana asagana Abiy Ahmed laftiisu wuxuu isticmaalay awood military wuxuu isticmaalay narrative keenay wuxuu soo bandhigay buuga mudamad soo bandhigay oo macnaheedu waxa weeyaan aniga inay wada khayr anaa waa inay wada ana idin oo macnaheedu waxa weeyaan oo laga yaabo dadka qaarkood ay u falanqeeyeen in loo xoog siiban doono dawlad oo magaranaysa dawlad oo central government loo xoog siiban doono inkastoo ay markii dambe ay doodeen markii wixii socon waayay ay magaranaysa ay si kale u doodeen marka dadkaan uu qaxay taamacnadeed marka waxa weeyaan takala afraad 2017 wuxuu bilaabay wax la doorasho oo aan doorasho ma bilaabin in dadka xoreeyo ma bilaabin dadka inuu dejiyo haddii marka farmaajo sameyn lahaa dadkii u kasbaday hadduu nama doonayn lahaa oo mucaaradka ka gelin lahaa xukunka ya waxa weeyaan uusan isticmaaleen aniga xukumaya maanta wuxuu kala boqor waxaa laga yaabaa in dib loo doorto waxaa laga yaabaa maanta inuu taariikhda baaldaaba ka galo laakiin awoodii aan lahayd oo dhaqaale ciidan iyo fikir haddaad ku bixisan inaad buriso nidaamka federaalka inaad bedesho madaxweynayaasha maamulka aad bedesho ya inaad mucaaradka aad cagta mariso taas dhan waxay keenaysaa laakiin madaxweynayaasha marka la bedelayo soo ma aha mar ay diideen la shaqeeyaan dawladda dhexe oo iyagiiba ay soo arkaan in dawladda dhexe ka awood weyn yihiin adu ma aaminsantahay inay ka awood weyn yihiin dawladda dhexe dawlad goboleedyadu maya dawladda federaalka xoog badan arrimaha dibadda iskale سك ودخلها إسكالي ودفاع إسكالي وإن باسبور هوصل إسكالي دولة يعني دولة مع مقابلات كانوا حيلين هؤلاء كله لكن هؤلاء كبحسن بهذا السوق الماء جودة هناك الشقيان الشعب كله أديان الجولس كانوا شقيان المحاويان نبض لقى الشقيان نبض يعني ما مقابلتك iyo dawladda federaalka shaqadooda kala cad waa kala cad laakiin Cabdiraxmaan marka madaxweyne farmaajo ama madaxweynihii qaranku inta uu yiraahdo taariikh fulaan waa in shir la isugu yimaado magaalada Muqdisho cid ka hoos qaada la waayo ama maalinta dambe la arko madaxweyne Axmed ama madaxweyne Qorqor oo taagan ama aan idhaahdo Ali ninkii la bedelay Ali Cusable ninkii iyo sidoo kale Cabdikariin Guuleed oo taagan meel Hiblaayo ama Dubai ka degay ama Addis Ababa ka degay ama Nairobi ka degay waxay soo qabanayaan aan loogeyn miyaysan khasab dawladda dhexe ku ahayn inay arinta farageliso laba arin kala qaad nin ka baqahaya
وهدو كوي ما دنا حدا كعب سنة أبنا دش كعب سنة هي ما ديك تلوجي بوعي ولا هو أنت في عمود إنسوشن وحاول إن كان كدرنت يعني إسلويني ده هي قبك هي فانك هي واندلي هي أكتر مريني اللي مور استايكرو كل شقينا ciidamadii uu sameeyay gorgor iyo ciidamadii aramacad iyo ciidamadii uu sameeyay oo loo talagalay amniga qaranka inay ilaaliyaan uu adeegsanaya inuu danihiisa inuu wax xaqiijiyo qofka uu manay mid uu ku galay armaad wada nidaamka federaalka ee Soomaaliya wuxuu u baahan yahay in la qeexo wuxuu u baahan yahay in dib loo akhriyo wuxuu u baahan yahay in turbax aan bixiyo wuxuu u baahan yahay power sharinka in la kala khaarada la kala sameeyo u baahan yahay nin oo waxa weeyaan madaxweyne maamul goboleed madaxweyne ka inuu ma garanaysaa dalka uu tagi karo waxa dhigaya maamul goboleed waxa dhigaya nidaamka federaalka waa dhigi kara adoo madaxweyne maamul goboleed inaad tagi karto dawlad kala boqon karto laakiin waa inuu jiro tansiiq calaqa waa in la iska warhayo laakiin haddii aan iska warhaynin waxa keenaysa dhibka doo ka socda dhibka aabuu ka socda dhibka wuxuu ka socdaa Muqdisho dhibka wuxuu ka socdaa ninka aan ogolaan inaan is doorto inaan is xukumo كاسوي أفكي قبنا يعلو قطبة إسارة من كاسوي مركه هديه مدحويرها مركز تا فواجه كده ما حتى كده صعبة وإنه تحضره وإنه السياسة وقاعد الدجن وإنه عل وصمي سنين وإن خبراء الفريسيو وإن ما مقبلات كشغلي سلقيحه قف كسر حاول يعني خيرات إنك علينا نوصل ما صارنا خيرات كنا محب قاب على أولى سنة هاي بدأ قف كسر قاب سنة بقال هذا كصوتي هذا ما كده وصل لقاعد اللي يعني يا بقالة هسه ما حد كفانا يعني قرضنا نبدأ بقالة هسه قالة سياسي لك سقراطي سودي قالة درك سومه وينو السنادان صوص وينو السنادو هدي أحزاب الصبيان لها حزب وحام مال قل له دولده هديك الحزب محنقنا حزب الله يري مش شيء حزب أمريكا دورش بقول كده بلا شرط مركب waxaan sida banaanba fashil waxa jira leadershipnimo kartixumi aqoon yari khibrad yari baa isku darsatay laakiin farmaajo ma ku sheegay inuu daacad yahay wanaagsanay maxay daacad ka yahay daacadnimo inuu ku jirto inuu maxay daacad ka yahay anaha inuu Soomaaliya meel gaarsiiyo daacadnimo noocaas way ku jirtaa laakiin aqoonteedii male kartideedii male geesinimadeedii male dadnimadeedii wadanideedii male geesinimadeedii maxay jeeda iqax geesinimadu waxa ku wada geesinimadu waa midda فيري لبكم أو قف أو موادنها أو المدحين وتابع لله تعز بعدتي وهذا استفيري إذا ماذا الصومالية فدرالك شريعة لواتهم كما يرون دولة قبل هذا دولة أوجوها سيساشن كله شن دولة قبل وات سديت كله إذا ما أن سديتهم كيرين أي الصومالية يستطيع إلهي بنقول أري هدوم ما أنت وإيها في ماجد دار كل واقعها وأنتو دهالك في شباب الله وسؤال لها يا كارنا دهر لها ما جيتو كان أستطيع عيلا دقالها بلا قاضي دقالها بحين عين طبعا إيش يا أردي لها أو عيدا ديار لها معاركة ديار لها جسمها فلوة فماجيك جسمها فلوة ما أنا ما أقدر أنا قصص أنا أورني هذا كمسؤول هذا كمسؤول واي جسمه حويان ينادي على الصوب من ما ضكاك ضكوا كلا يعني شعب ينادوا أرجدو ينادوا حويان طلبوا ينقاطوا ينادوا كل حريصه ينادوا كل إلى حتى عمسهم داس كهرباء جسمه واي ما صدق واي dad kalena waxay u arkaan inuu fulay yahay laakiin fulinimadiisu ay tahay inuu naxariis badan yahay oo lacagta marinin mucaaradkan qayliya iyo dadkan ka soo horjeeda يوسف عبد الحق شكون ويرين يوسف أحمد هو ويرين ومدحونا جبلانه يوسف ويرين شريف شيخ أحمد وحسن محمود يوسف ما صار له تو يوسف ويرين فبوري سالة بكي يوسف ما أنت كده بيسي كو حضن أو حس على خير عبد الحق شكون يوسف ويرين يوسف أنت سقف وهذا فيري عبد الرحمن الله ولا فيري ويرك عبد الرحمن عبد الشكور لو شير بقول عليه سوار وهذه شكتها ويرك عبد الرحمن عبد الشكور ما هي كان ما تصال ويرك عبد الرحمن عبد الشكور ويرك أحمد داعي أما عبد النورسي وحسن شيخ محمود هو قاضي ما يقول دوين إيش شك وحكوا دوين لما نعرف لما بناجوا نينا وانين دون يا بركة روكو حكمه بر يا سيف يقري كرجة تلسنمو
oo aan laga dabaynin oo laga daba hadlin ruux soo weerar ma سوق وير لا وير أنا وير قاد كلا أنا وير قاد كلا وير نوعي وير قاد ويقدوي مدنا وقف لحجرة كجرتو ضرك ولا ودليه هاي وحاويان معادي محافظ ودليهين حكومة البوجرة وزراء كيهين يا لما نرتفي ما كان لسوق بريكو aad baa maasan tahay waa ka gudbaynaa waxaan u imanaynaa arintan ciidamada oo dhowr jeer aad ka dhawaajisay ciidamadan waxaad sheegtay inaan loo sinayn shalay xafladii loogu dabaaldegayay 12 abriil kama soo qayb galin ra'iisul wasaarihii iyo maxaa la dhihi jiray wasiirkii gaashaandhigga iyo wasiirkii amniga iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii afarta mas'uul oo title sare dawladda kule mayna ka soo qayb galin dadka qaar waxay aaminsan yihiin in ay iyagu ciidamadii iska fogeeyeen oo iyagu ay dhaliisha leeyihiin oo ra'iisul wasaarihii uu isagu isu arkay inuu mucaarad yahay wasiirkii amniga iyo wasiirkii gaashaandhigga iyo wasiirro kalena kolkii horeba uu u magacaabay inay isaga yihiin jeebkiisa inay ku jiraan inuu jagadan laftooda u geeyay iyagiina isagu weli jeebkiisa ku sii jiraan lafta gareen darhad waa maqlaysay wuxuu lahaa guriga uu ka shaqeeyaa xildhibaanna waa magacaabayo wasiir gaashaandhiggu ahaa qofka hadalkaas maartay ula jeeday soo uma muuqato dhaliishan inaan loo sinayn oo munaasabadaasi inay ahayd munaasabad ciidanka qaranka Soomaaliyeed uu leeyahay nimankana waxay uga maqnaayeen ay ahayd inay iyagu ciidankii qaranka u tiiriyeen inuu iska leeyahay arintan runtii waa arin bas daraa in 2022 ay dhacdo إلا يسألوا كذا بروان أو كذا فلادر يحينها يزجر لكن مسؤوليته أقول محققة يحينها ويصدق يحينها لكن لو ما أقوله مدعويني ولا ليه وحيل كاري السجع ذلك مدعوينه كه السجع الربي إنه ذلك سوري هذيو أنت لكن أنت وين لا غيره إنه ذلك ولي مدعوينه كيه سوما مدعوينه إنه كيه مدعوينه كيه مدعوينه هراي يقوله واقع معارض مدعوينه كيه عاد كل شيء مدعوينه كيه مدحوينه ساعه فلوس ولا جوا لكن waxaan oranayna mudxeleedkayga waa ka dhabaray sharci kala jira marka mudxeleed ma ka dhamaado waxa jira wax leeyahay aan la ogolaan firaaq suuri firaaq suuri lama ogolo haduu firaaq suuri yimaado khatar dowladnimada khatar galis waxa dib loo noqonayaa kuma gaarti dib loo noqonayaa marka taasaan u dhicin waxa jirta madaxweyne noqonaya oo madaxweyne laakiin waqtigiisa dastuuriga waa ka dhamaaday maraykanku marka ay soo saareen فبراير دي ما ينوع قوسينيه مدحوين هذا فول ريسبونسبيلتي مدحوين عاد وقت اسكو دما marka in aan ilaahno aan mucaaradku ay yiraahdaan madaxweyne waqtigiisa oo ka dhamaaday waa ana sharci caadi ma aha macna ceebna ma aha arrin ma garanaysaa lagu yeesayna ma aha laakiin markii madaxweyne cusub la doorto asaga xukunka iyo qarada asaga wareejinaya ma wareejinaya qof kale qaabta midaas way arrintan runtii aan u soo noqono arrimaha bulshada arrimaha ciidamada rabaa ciidamada in badan ma ka hadalay ciidamaduna runtii way kala fara badan yihiin wadamo badan baa taabara iyo kaadi wadamo ka taabara waxa kamid ah Mareykan waxay taabareen ciidanka dalab waa ciidamada ugu fiican oo ugu wanaagsan waxa ka lamid ah ciidamada kale ee gaashaan ama arfku loo yaqaan iyo ciidamada waran oo ayaguna lamid ah يا توبر يجنا ملكة وعندما هذا السؤال يجي عندما أوه في حاجة الديسبلين كذا حاجة يعني كنت سيادة مركلة أخلاق يا وحى أي قرنا يعني وحى هدف كود وعد يعني ما قلت وأنا عندما دي لا يجري لوقتي حشر أي وقتي شريف لا يجري لوقتي عندما كلا قرقر وعندما تركي تابرين عندما الوقفانا يا واحد ما قلت لكن waxaa dib loo keenay baan filayaa dib u qorshada waxa leeyahay dib u doorashada markii madaxweyne Farmaajo marka dambe la doorto I don't think inaan doorin oo fursad u saaysanin inuu waxa ku diyaarso soo bandhigay inuu ma garanaysaa uu sameeyo laakiin la ku sheegay maxaa sameynaya macnaha inuu adeegsado ciidanka oo ala qal yani uu ku sii dilo gobolka kale uu ku sii dilo laakiin uu ku sheegay caqabadaha hor yaala ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo duruufaha ku shaqeynayaan markii laga shaqeeyo هذا نفترض وحقيقي درين ودري بودرس عندما markii la fiiriyo loo fiiriyo ciidamadii AMISOM hadana ATMIS loo bixiyay waxa weeyaan fadhiid ka noqday shantii sano ugu dambeysay laga soo bilaabo 2016 laga soo bilaabo ilaa 6 sano fadhiid waay
ayaa ciidamadeena ayaa ka fiican oo weli dagaalka lagu soo weeraray iska caabiya oo weli aad arkaysaa waa la islaayay ma fahantay mushaarkooda waa yaryahay cunaqateyntii caalamka oo UN-ku ina saareen 93 weli ina saartay hub culus ma soo deeqtid diyaarad iyo taangi iyo madaafiic goob ma soo deeqtid walaa xataa hubka lagu burburiyo taangi xataa ma kaysan cunaqateyn ku saaran iyadoo haddana saa tahay lama helin dawlad Soomaaliya u daacad baxda oo u noqota dawlad oo garab istaagta oo ciidanka ka dhisana lama helin sida Ciraaq ay Mareykan u bastay Ciraaq waxa qabsay Daesh lix bilood yaa ka horreeyay Mareykan oo ciidan oo wata caalamka Bashar al-Assad yaa garab istaagay ruushka garab istaagay Yemen hadda dagaal ku socda garab istaagay waxa garab duwal badan oo khaliis innaga yaa garab istaagay waxa garab istaagay midda waayo 15 kun oo ciidan 20 kun oo ciidan oo la tiyay oo lagu kabay ayaa ku filan inay xasiyaan dalka Turkiga oo kale waa dawladda naata ka tirsan inama garab taagna markii laga reebo dee tababarka ciidanka laakiin in la soo aftaro amniga in la soo aftaro al-shabaab maanid uma haystaan waxay fiireen Amazon bay fiireen Amazon bay uga dambeeyaan Mareykan sheegay Mareykan shaqada uu qabto ugu fiican waxay tahay ciidamada waa taabaray laakiin ciidamada Soomaaliyeed uu taageeraa oo runtii waa row qaadaa military oo xagga cirka ah saraakiil al-shabaab ayuu magaranaysaa ayuu laayaa laakiin waxay keentaa sometimes khasaare shacbi ay keentaa laakiin arrintaas waxay ahayd inay xoojiso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay xoojiso dowladnimada in maanta madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku faano waxaan xoreeyay 30 magaalooyinka iga maqan gacantan ku haya inay ahayd laakiin ma dhexdaas bal waxay keentay inay sii xoogaystaan argixisada waxay keentay in Mareykan lagu weeraro Kenya gudaheeda laama lagu weeraro waxay keentay inuu Trump uu ku dhawaaqo inuu ciidanka uu kala baxo Mareykan uu kala baxay waxa soo celiyay madaxweyne cusub Saudi laakiin kay la weeraro waxay keentay in la yiraahdo al-shabaab ha loola hadlo sida Taliban walaha hadlo wasaxaafada Mareykan ay qorayso waxa weeyaan ay Mareykan iyo qadar ay ka hadlayaan waftii qadar ay yimid ma garanaysaa Muqdisho bishii May 2011 waftiga yimid ay u sheegeen midowga murashaxiinta markay kula kulmeen hotel Dakaale ay weydiiyeen maxaa ka aaminsantiin al-shabaab iyo amniga Soomaaliya waxaan aaminsanahay in wada hadal la bilaabo laakiin waftigeedii lama gaarin doorashada hala galo markii kadib baan wada galinaa arrintan waxaa ka wada hadalnay Mareykan banaanka keenay saxaafadda Mareykan banaanka keentay marka waxaaba laga hadlayaa al-shabaab inay yihiin oo kale Taliban oo wada hadal la galo dadka lagu wareejiyo dawlad islaamiga laga dhiso oo qaabka Taliban oo kala ah noocaas barnaamij la karkaranayo oo la akhrinayo waa go'aamo laakiin shan sano kadib wala xabad qash ka siin wax keeni karta arrimaha ciidanka marka la fiiriyo waxaan u baahanahay oo qaybta la qaban u baahanahay waxaan u baahanahay in la firiyo ciidanka hadda jooga ee madaxweyne Farmaajo shalay soo bandhigayay iyo kuwa uu soo bandhigay kale istidiyada jooga marka la fiiriyo ma isleedahay haday Amazon maanta baxdo ama Atmistan hadda magaca bedelatay haday maanta baxdo way ku filaan karaan hadii si daacad loo wajo shakada ay ku jiraan waxaan ku dhihi karaa ciidankaas waa ciidan shaamid ah ya ciidan shaamid ah وعيدنا شامد بحد ولا كده شامد وعيدنا عم بديسنين هي عيدنا وحجوا عن كسمايو كون وحجوا عن بيدا بكون وحجوا عن جوهر يدو سمرابي كوفة درال قاعد كويه كلية مية ما كوفة هي عيدنا فدرال كي كفرة وإن أي باش عالم كأي داعد نقطه وإن لقلب يعيدك كاس وإن عنقتين تهب كلا يقعد عيدك وعيدك سماريد وهيلي كرو هبكي ولها أنا قلت ديارضو أنا قلت تانجيو إنك سؤال لفتة على مساو صارتها وهدي مركز مدحونا مركز جو ودا وهلا المؤف جنب سمايا يؤف جنب سوا حلقة عيا حكودا أفكم بسمايا أفكم بسمايني مع مقابلات شركة مع مقابلات أيوة حري كوا كلنا وصاري حلقة مدحونا ودا جهة أفكم بسمايني إذا ما كنت البري شركة بوحري
ciidamada ku dabaqay waa shaqo caadi ah arrimaha gudaha adiga saad moodi ma waxaan wax baatka la sameeyay way Soomaaliya kale ma kale laga sameeyay macnaha waxaad ula jeedaa inuu federaalka baabi'iyo hayes ma xasan afgamiga saas ula jeedaa hay ma xasan la xiraya ciidamada sala adeegsani dastuurka la bedeli waxa loo guuraya nidaam kale waxaan ka baawar ka helay madaxweyne laakiin haduu qofka duu yimaado la kuma dhigi karo marka waa ciidanka waa in cunaqayn talaaqado hubba inay helaan waa in dhaqaalaha helaan fahantay first wax fudud baa uma baahan ciidamo shay uma baahan ama Soomaaliya loo baahan aadis loo baahan runtii waxaan mid baan inaan aaminsanay dhalinyarada hadda ciidanka Soomaaliya ka shaqeynaya laga yaabo qofku inuu khaldami karo laakiin si guud dad wanaagsan oo wax bartay barashadooduna ma ahayn farmaajo waqtiisa taliya hadda jooga barashidiisu way ka horeysay adawaa waqti Xasan Maxamuud laakiin isla halka inta ka bixin su'aal kale aan ka weydiiyay fiiri waxaan markii sabxaan haysanaa nawaad si fiican ugu faahsan laakiin waxaan naga isbagarnaysaa waa siyaasadda halka lafteeda aan su'aal kale ka weydiiyay miyaa madaxweyne farmaajo gridid lagu siin karin sida dadka qaar ba sheegaan hadda odawaa oo kala sheegtay waxbarashadiisu ka horeysay laakiin waa nin dhalinyaro Xasan iyo Shariif iyo ragii ka horeeyay ee ciidanka dhismihiisa soo bilaabay waa run grididka way leeyihiin soo bilaabeen laakiin waxa dadka qaar ay sheegaan in odayaal waaweyn oo aan la qabsan karin waaqica maanta lagu jiro oo saraakiishii hore ciidamada ah ma aha inaan yasaya laakiin macnaha maskax weynaatay oo maanta aan laga faa'iideysan karin inay maaragtay ciidanka ay xukunkiisa u dhiibayeen iyaguna ay la degayeen madaxweyne farmaajo uu fahmay doorka dhalinyaradu ay ku yeelan karaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dib u kabashadooda that's why dariiq wanaagsan uu fahmay general Odanwa iyo ragga kale dhalinyarada ee barbar socdaba uu sida maaragtay uu ku xushay soo lama oran karo waa gridid uu leeyahay si kala u dhigaaray haye in la isku daro saraakiisha ciidanka la isku daro oo waxa weeyaan saraakiisha hore iyo saraakiisha cusub kuwii waqtiga kacaanka ama ka soo horeeyay kacaanka iyo kuwa hadda cusub in madaxa la isu geliyo oo conflict iyo dagaal laga dhaxabuuro shaqo hadda bilaabtay waxaana bilaabay xukuumadda maamulada hore waxaan isku haysanay siyaasiyiin bay haystay oo beela ay haystay haddana haddii la dhaho aan isku horkeeno saraakiisha oo haddii la yiraahdo laakiin wax saraakiil sistamina may ikadi ana asgar u talinay sargaal aqoon leh oo shan dal ay wax soo bareen Mareykan iyo Ruush iyo meel wax soo bartay aqoonta ciidamada leh marka dhahdo waa dadkii hore laba jaqaadi karo ana ku sheegay marka ana ku faasiinay madaxweyne maxamed Abdullaahi Farmaajo wuxuu rabaa dad dhalinyaro ah oo wax u sheegi karo oo aan may dhigi oo aan capacity weyn oo falanqeyn iyo fara badan aan lahayn xamaasadana leh midna ku sheegaya qofka dhalinyarada markuu yahay xamaasadiisa badan waxaa laga yaabaa inuu sankaasiyo sameeyo waxaa laga yaabaa inuu qalkastuur sameeyo waa geesi markasta shuyuuqa markasta odayaasha markasta kiisha hore ee dalka loo soo geliyay loo soo cadiyay waa loo baahan yahay laakiin haddii hadda kufro taala abo laakiin inay backup hadan baa loogu baahan yahay soo ma banaanka ma haye qofka shaqay kara yani misaalahan waxa la sameyn karaa macad waxay ka qayb qaadan karaan tababarida ciidanka tababari kara maxaa looga baahan yahay tababar dibadda loo aado waxaa tababar dibadda loo aadaya qof in la soo programmiyo waxyaaba kale soo programmiyo soo soo saas uma raka laakiin saraakiishii hore waa saraakiish aqoon leh ana waxaad leedahay Soomaalida dhexdeeda tababar karta yes Soomaalida isku filan oo xataa tababar isku filan laakiin waxay u baahan tahay qorsheedii u baahan taas oo qorsheed u baahan marka arintan oo runtii ciidanka si fiican waa hadlay laakiin arrin ku sheegay ciidanku waxay u baahan yihiin in siyaasadda laga fogeeyo siyaasadda haddii ciidanku ku imaan waa lagu jabayaa ciidanka iyo shacabka Soomaaliyeed mar buu dhaawac soo galay dhexdooda kalsoonida dhintay waa waqtigii kacaanka waliba wixii steedka musaab steedka la soo bilaabay waxaa soo dhaxgalay mugdi weyn waana mid keentay ciidankii inuu buburo ya
haddii marka ciidanka dib loogu celiyo siyaasadii tii baa hadana aad baa maasanta arrimaha ciidanka waa ka gudbaynaa AMISOM laba kelimo inkastoo taabatay wax badan haddana si joogitaankooda iyagoo mandatekoodii dhamaaday haddana mandate cusub iyo magac cusub oo ATMIS la yiraahdo haddana ay ku sii joogaan Soomaaliya maxay uga dhigan tahay maxaa isbedelaya oo qaabkii hore ee AMISOM ay Soomaaliya uga howlgalaysay maxaa iska bedelaya isla horta waa anu soo dhaweynayaa in AMISOM lagu shiro oo ila fadhi baatiin xameena qabeen horta AMISOM runtii wax badan bay qabteen haddaan hore u fiirno waayo meelaha ay joogaan ayaga masuulka anigu intaas magaalo joogaan afar badan ama shabeelaha hoose shabeelaha dhexe ila jubada hoose ila gado ila hiiraan wajoo ila bokol ila baay bokol wajoo magaalooyinka waa weyn bay joogaan oo istiraatiijiga iyo magaalooyin kale oo u aha difaac waay sidoo mid kale waxay ilaaliyaan madaxtooyada iyo wasaarada iyaga ilaaliyaan masuulka iyo meelaha kale looga baahdo sida midaan erboyada qaarkood sida Usmareeb oo kale sida Badweyn oo kale sida midaan Jowhar oo kale sida Kismaayo oo kale airportkeeda deked oo kale ya sida Baydhabo oo kale waxa weeyaan waxay ilaaliyaan garanaysa shaqo ma hayaan lama xaqin karo haddii ayagoo hadda ay baxaan waa la subaxaya marka nimankaas waa niman horta waa AMISOM yani shaqay qabteen oo ma aha waxa ma naqan laakiin waxa la rabay in ay 5 sano ugu dambeysay in ay xamla la qaado kabeyn la qaado magaalooyinka ka maqan la xoreeyo shabeellaha hoose magaalooyinka hiiraan mudug waxa weeyaan shabeellaha hoose baaya bakool jubada dhexe jubada hoose intaas oo la xoreeyay laakiin tii badhe marka doonaliska yaa way hayruba doonaliska boqolkiiba 9 lacagta AMISOM ku baxda hayruba iskale ayagana way arkaan waxa soo socdo way u jeedaan حتى مجرى موت النوري ومجوجان هذا حويان سفارة الحين كفرين حالة ولا شايين يا والله شاكي صريع ولا بطول يا بس بالوجه يعني ما فاتي مركا تاسك أنت مركا إن حساب تمو هي رنتي تن وزارة كشانيكا أما تريها عيدك أما هن وعبد الله الحتوي ده إن مجرنس لجاه الله أرنتا وفكس للسعر ولا يلا ورشة استوى ومس عنكر haddii laba kun iyo 20 ay ciidamada Soomaaliya ay la wareegi waayeen hawsh ama 2019 laakiin waa in qorshe kale la sameeyo oo magac kale la sameeyo ana horta guud ahaan anta soo dhaweynaya waana arrin runtii dhiirigelin oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhiirigelin oo ahaa dawladda Soomaaliya dhiirigelin oo xataa beesha caalamka oo laftooda waxa weeyaan way mugtay carar lahaayeen hadda waa qorshe kala jira ayaa meesha mugtay absolutely aad baa ma santahay laakiin يعني الشقة أي قبلنا نحن سلاحي وديارنتا ولي عندما الصومالية لكن الشقة أقوم من سنة عدوش كسرنا دول الصومالية aad iyo aad baa maasantahay waraysi waynu dheeraado soo koobaynaa marka aan fiirino aad baad uga falan qotaa amniga iyo maaragtay siyaasadaba toddobaadkan waxaad boggaaga Facebook ku daabacday warbixin aad ku sheegtay in ciidamada Ethiopian ay soo galayaan dowlad goboleedka Jubbaland xogtaasi maxaad nagala wadaagi kartaa jiritaankeeda dhaqdhaqaaqa ciidamada Ethiopia waa mid iska muuqda waay ciidamada Ethiopia ee Soomaaliya joogana tiradooda lama garanayo waay ciidamada AMISOM marka laga reebay kaga jira laakiin waxaa jirta marka in isbedel la jira waxa la jooga baa 6 bilood ama la jooga waxa waa isbedel dhaca marka arrimaha iyo xogaha aanu helayo ama kibaaxaya media ama sigaar loo helayo waxay sheegayaan in ciidamadaas ay bedelayaan ciidamada Ethiopia ee jooga dalka Soomaaliya ciidamada Ethiopia waxay kala joogaan meel kala duwan joogaan haday noqoto gado waa safara iyo haday noqoto noqoto marka ciidamada kuwa bedelaya waa arrin meeshan noqonaysa waxa kale meesha ku jirta oo ayadana aad loogu soo celiyay in uu soo xaqarin karo ciidan kale oo aan ciidankaas ahayn ujeedada leh laga yaabo inay operationo ay qayb ka noqdaan haday noqoto operationadaas bay haday noqoto Bokol ha noqoto haday noqoto Hiiraan ha noqoto haday noqoto Jubada dhaxay hoos ha noqoto yani inuu qorshe uu jiro oo arintaas ah lamana fogeysan karo arrimahaas oo kale ay waa arrimo ciidan waana aad loo soo ogaan karo laakiin haddana marka la fiiriyo siyaasadda hadda jirta dalka ka jirta iyo sida loo kala fogaaday marka la fiiriyo iyo doorashada oo laga yaabo in ay dib u dhacdo doorashada madaxweynaha waxa laga yaabaa inay September gaarto waxa laga yaabaa inay August gaarto bilaa inta la eeg marka maxaa la qabanaya
marka haddii ay markasta waa jiri karaa qorshe noocaas oo kale runtii aniga xogahanaya waxaa ka mid ah xataa inay Ethiopia lafteeda iyo ciidankeeduba inaynan xataas ay qayb ka yihiin laftooda inay wax la qaban karaan ama la soo nooleeyo heshiiskii saddexda dhexmaray geesoodka iyo geesoodka la soo nooleeyo oo wixii la qaban karo farmaajo la qabto arrintaana waa arrin oo qarsoon ma aha waa arrin oo waxa weeyaan ayagu ay ku sheekaysayaan kuna sheegay marka waa arrin noocaas ah laakiin aniga waxaa ii muuqata in al-shabaab meel laga xoreeyo horta cidiidu ma jirto meel alla meesha al-shabaab haystaan in laga xoreeyo cidna ma diidana laakiin ciidanka arrimaha ciidanka iyo arrimaha amniga waxaa ka horeeya siyaasadda waxaa ka horeeya heshiis wax lagu yahay iyadoon siyaasadda laga heshiinayso lama xoreyn karo haddaad meel qabsato oo ay keento inay ciidamadii isku dhacaan ciidamaa tegey meel ciidamo kale kama fogo way ku maxaa tusaale soo qaadan kartaa marka tusaale ku soo qaadan karaa waxaan ku soo qaadan karaa bu'aal kale bu'aal ciidan badisay oo dawladda kama soo qaada ciidamadii kale amisom iyo ciidamada kale Jubbaland waxay u jiraan masaafo yar oo ku soo gaari karaan 2 saacadood oo ku iban karaan meel isdina marka labada khatar ka badan marka labada khatar waxaa badan magaalada hadii la xoreeyay la wada joogo maxaa diiday mid baa jirta laakiin ma xoreysay ma joogaysid waxaa ku soconaysaa Kismaayo afmadow Kismaayo laga xoreeyay waxay aaminsantahay narrative Kismaayo waxaa haysta Kenya shay haysta waxyaabaha dadka laga gabayo khaldan maalayacni ka mid ah macnaha waxaad la jeedaa yaa sababta joogta Garbaari iyo mid joogta Muqdisho iyo mid joogta Jowhar xagga Dubai إيش بحثك بيه مجد واحد إلى هذا ما كان في رسول وحي قرآن ما كان في رسول وحي ما كان في رسول وحال أبوري دقاس خير يسكت دل عن دلو عن تاسم واي مركب حلا هاي هديب على أي قبطان وكلا وحي وشاهد يعني وتهذا وحاويان مركي واقعين وفيريا حق واي لكن واقعين ما كلا فيريا ما كلا فيريا وقت رابع هذا حقها هيسكمل متى يعني بارين لقط inuu ku fikirayo maxay Cabdullaahi Farmaajo marka la qabtana marka la qabtana kadibna optionkiisu muxuu yahay in macnaha madaxweyne lagu dhiso hada fiiri markaan kuleeyahay narrative-ka madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaashii Xasan way kala duwan inta laga uma socotid dad dhisid uma socotid xasilooni waxa u socotaa burbur iyo kala eebdo isku dil beero isku didda walaalaha inaad cadowgaas fursad wadada Muqdisho iyo Afgooy iyo Baydhabo way xiran tahay ma furtid wadada Baydhabo iyo Isha Muqdisho iyo Balcad way xiran tahay ma furtid 6 kilomitir way Afgooy way xiran tahay ma furtid xalay dagaal ka dhacay Afgooy afadu ma waxa ka dhisid ma Muqdisho waa go'doonay waxa weeyaan ma go'doon ka saaf dadku fikiraysa marka ciidamadii aad diyaarinaysay intaas sano ma noqdaan ciidamo meel qabtay oo meel xoreeyay oo marka ka tagto waxa u aydo oo lagu amaano oo wallahi ninka waxba qabtay aad ba ma santa kun ee lagu laayay October 40 October aad ba ma santahay xogtan marka daabacday xuraansi aan sameeynay xogaha qaar soo baxay waxa ay tilmaamayaan in ciidamadii Eritrea ku sugnaa ee dhalinyarada ahaa ay macquul tahay in la soo galiyo oo ciidamada Ethioopiyaanka hadda ama bedelaad ha ahaadaan ama si kale ha ahaadaan ay soo raaci karaan halka laga keeni karo Ethiopia la soo marsiinayo gadana laga soo gelinayo si ay bu'aal u aadaan ma qashay adiga yaana u maqlay walba waxaan ka maqlay xogta sida ma maqashay aye waa maqlay in ciidamadaas horta ciidamada lagu maahin karo Eritrea aye haddana waxa soo noolaanaya qori in iska shado marka ciidamada hadii la keenana maaha ciidamo oo ma garanaysaa meelkiisa la geyn karo ciidamada hadii la keeno ayagoo indhe xiran ayagoo meel kale aadin in lagu wajaho cadow loo sameeyo oo meel la geeyo waa horta waa qorshe waay waxa kale meesha ku jirta waxa laga yaabaa haday run noqoto in ciidamada Soomaaliya Eritrea joogay inay qayb ka ahaayeen dagaaladii maqal ka dhacay oo dad badan ay ku dhinteen lafteeda waxa laga yaabaa in ay ka faro noqdaan
laftan hadday al-shabaab dagaal la galaan way dhiman soo maha way dhiman laftooda way dhiman marka lafteeda waxaana waa operation kale oo marka laga yaabaa inay kor u qaado al-shabaab baan la dagaalamay dhul baan xoreeyey kadib markaa inay keliya u noqoto farmaajo ya taas ugu muhiimsan ta ugu muhiimsan warayn taas okay waay dad baan xoreeyey halay doorto aad iyo aad baad mahadsan tahay mudan cabdiraxmaan waa ku dheeraanay kelmadaada ugu dambaysa maxaa oranay kelmadda ugu dambaysa waxaan oranayaa Soomaaliya uma baahno narrative ku dhisan in awood la isku adeegsado waxay u baahan tahay isqaadasho waxay u baahan tahay power sharing in la qaybsado waxay u baahan tahay dastuurka in uu noqdo midka dadka kala haga waxay u baahan tahay in awood qaybsiga hadday noqoto heer federaal heer maamul goboleed in waxa weeyaan uu sarxayndaabka sharciga dastuurka ka bixin waxay u baahan tahay dalka in la xasiliyo oo xagga amnigana in la xasiliyo aan u baahannahay waxaan u baahannahay in ay Soomaaliya hesho saaxiib dawli ah mush iqliimi saaxiib dawli ah sida Mareykan oo kale oo ay heshiis la gasho kana saacida arrimaha ciidanka iyo arrimaha xasilin dalka iyo Soomaaliya u baahan tahay Soomaaliya waxay u baahan tahay kheyraadkeeda inay la soo baxdo u baahan tahay oo ka kartoonto inay gacmaha u hoosato shisheeye iyo wadamo caalab oo ay garanaysaa gacmaha horsadaan oo lagu abuse gareeyo shacabka Soomaaliyeedna midaan looma baahno markasta waxaa muhiim ah qofka wadaniyada markuu sheeganayo waa in uu muwaadinka ilaaliyo muwaadinka ayaa wadaniyada asal u ah maslaxada dalka waa inuu ilaaliyo asaga waa inuu san ka shaqeyn dantiisa gaarka waa inuu ka shaqeeyo danta dalka inuu ka shaqeeyo danta guud inuu ka shaqeeyo dadka ku talin lahaa waa hagaag daawadayaal intaasaan kusoo gabagabeynaya waraysigan gaarka ah waa qaybtii labaad ee aan la lahayn waraysigii aan la lahayn mudane cabdiraxmaan sahal yuusuf agaasimihii hore ee xarunta cilmi baarista ee irshaad haatanna ah falanqeeya dhinaca siyaasadda iyo weliba amniga aad baan uga mahadcelinayaa inuu waqtigiisa qiimaha badan qayb naga siiyey magaalada Nairobi ayaan kula kulannay oo aan waraysigan kaga qaadnay intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo aad baad mahadsantahay mudane cabdiraxmaan oo ku mahadcelinaya